Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Muuqaalkeenan haddii allaha awoodda leh u karaal noqdo waxaynu ku baran doonaa sidee loo sameeyaa calendar design, weliba nooca desktop calendar designka loo yaqaano, innaga oo ku sameyn doono programka ama applicationka Adobe Illustrator. fadlan ka hor intayna u gudagelin muuqaalka, haddii aad ku cusubtaa kanaalka inoo subscribe garee, sidoo kalena muuqaalkan si uu meel dheer u gaaro laagtaada waa inoo muhiim oo inoo laag garee. waxaa kaloo iga xasuusin waxaanu wadnaa diiwaangelinta dufcad cusub ee barashada xirfadda graphic design. haddii aad diyaar tahay si aan ku diiwaangelino, waxaad nagala soo xiriiri kartaa WhatsApp numberkeena oo aan kusoo dhigi doono qaybta ugu horeysa ee descriptionka ama commentiga ugu horeeya ayaan biin kuu saari doonaa. sidaasi oo kale muuqaalkan resourceska aan ku isticmaalo waxaan kuu soo gelin doonaa Telegram channelkeena iyo Telegram groupkeena iyo WhatsApp groupkeena ayaan kuu soo dhigi doonaa. si aad ugu soo biirtidna waxaad ka helaysaa linkiyadooda qaybta hoose ee descriptionka. waa hagaag markana aanu bilaabano cashirkeena. marka hore waxaad leedahay toolkan ayaan dooranaynaa artboard ay ku qoran tahay. artboard markaasaan u doorano kadib halkan ayaan waxaan ka leenahay new artboard ayaanu kaga soo darsanaynaa. qaybtan kale haddaan rabno waan kaga soo darsan karnaa. halkan lafirkeeda waxaa la yiraahdaa properties ayaa loo yaqaanaa. laakiin halkan ayaan kaga darsan karnaa. haddaan new artboard dhahno waxaa noo imaanaya artboard cusub. artboardka cabirkaan isticmaalayno waa A4 size. halkan ayaadna ka ogaan kartaa. hadda waxaa check inoo saaran waa A4 size. marka calendarka aanu design garaynayno waa A4 size, weliba landscape weye, waa nooca jiifjiifka ah. halkanna waa portrait, waa nooca istaaga ah. marka new artboard ayaan leenahay. artboard cusub ayaa inoo imaanaya, artboard 1 iyo artboard 2. waxaanu diyaarinaynaa bisha January ayaanu isla diyaarinaynaa ee sanadka 2026. kadib waxaan tagayaa selection tool. maadada ugu horeysa waxaan sameynaynaa, waxaan soo abuurinaynaa shape-kan oo rectangle shape tool ayaan soo qaadaya. halkan ayaan ku drag gareynayaa. markaas ugu drag gareeyo midabka, waxaan rabaa inaan midabka bluega soo qaato. waxaan tagayaa toolka loo yaqaano eyedropper tool ayaan kasoo daaranayaa. kadibna bluegaas ayaan click ku siinayaa. intaas markaan sameeyo kadib waxaan sameyn doonaa mar kale toolkan la yiraahdo rectangle ama shape-kan mar kale ayaan ku laabanayaa. halkan ayaan kusoo drag gareynayaa shape kale. shape-kaas markaasaan dhaho waxyar saasaan dhahayaa. kadibna qaybtan stroke ayaan tegayaa oo white ayaan kasoo dooranayaa. kadibna waxaan ka dhigayaa 2 cabirkiisa. kadib waa soo qaadaya, halkaas ayaan saaranayaa. intaas markaan sameeyo labadaas sidaas ayaan dhahayaa, halkaas ikee. waa hagaag. mar kale haddana waxaan ku laabanayaa shape-kan rectangle. halkaan ayaan shape kusoo drag gareynayaa. shape-kan waan ka xirayaa marka stroke oo waxaan leeyahay none ayaan ka leeyahay. intaas markaan sameeyo selection tool ayaan ku laabanayaa. shape-kan halkaan ayaan soo dhiganayaa, waana soo yareynayaa. labadan ku laabo waxyar, labadaas markaa ugu laabato waa inaa yareysaa. halkaas ikee ayaan leeyahay. okay, waxaan ilaa intaas ayaan keenayaa dabcan. kadibna kan ayaan waxyar sidaas usoo yara weyneynayaa. kadibna halkan xoogaa hoos ayaan usoo yara celinayaa. okay, bartaas markaan keeno waxaan u baahanayaa sawirka gabadhaas qoslaysa ayaan rabaa inaan halkan ka heesado. kadib halkaas ayaan 3 jeer klik ku siinayaa. sawirkaas ayaan waxaan leeyahay control C waa soo koobiyeysanaya. halkan ayaan la imanaya, waxaan ku leeyahay control V. imagekan waxaan rabaa inaan shape-kan dhexgeliyo. si aan shape-ka u dhexgeliyo waxaan sameynayaa imageka shape-ka ayaan imageka ayaan hoos marinayaa oo waxaan leeyahay right click ayaan ku dul dhahayaa. kadibna arrange, kadibna waxaan leeyahay send it to the back. okay, hadda marka labadan ayaan iskula dooranayaa. kadibna right click ayaan leeyahay. kadibna waxaan leeyahay make clipping mask. sidaas ayuu ugu dhex jiraa. marka si aan haddaan rabo inaan gees u dhaqaajiyo waa u dhaqaajin karaa. okay, intaas kadib waxaan sameynayaa control 2 baan iska leeyahay, log baan ku xirayaa imageka iyo macala shape-kiisa. labadaanna sidoo kale control 2 baan leeyahay, iyagana waan iska xirayaa. waxaan rabaa shape-kaas kale inaan soo abuurto. waxaan mar labaad ku laabanayaa ama mar kaleba rectangle tool. kadibna halkaas shape-kaas ayaan soo dhiganayaa. shape-kaas markaan soo qaato kadib halkaas ayaan keenayaa dabcan. shape-ka markaasaan ku dhaho bartaas. okay, waxyar iyo yarey waan leeyahay hortaagii. isla isaga ayaan koobiyeynayaa oo waxaan leeyahay anoo altada hayo saas waan soo drag gareynayaa. kadibna waan soo yareynayaa. kaasna waan soo qaadaya, halkaasaan keenayaa. okay, intaa markaan sameeyo kadibna waxaan sameynayaa halkan qoraalkan ayaan qoranayaa.
kadib waxaan tegayaa text tool halkan ayaan ku dhufanayaa qoraalka wuu iga yaryahay dabcan halkan ayaan ka weynaysanayaa oo waxaan ka dhigayaa 36 meelahaas kadibna farta nooca aan rabo waxaan ka soo qaadanayaa halkan ayaan ka soo daaranayaa farta waa logic waxaa loo yaqaanaa fartan aan hadda isticmaalay logic ayaa loo yaqaanaa stylekeeduna waxa weeye waa font stylekeeda waa medium okay midabka waxaan ka dhigayaa hadda gaduud iskaga dhig dabcan si aan u arko okay marka waxaan leeyahay www.dentalcare.com ayaan leeyahay kadibna waa soo qaadayaa horta halkan ayaa keenayaa marka halkan keeno midabkeeda waxaan ka dhigayaa caddaan waa inaan loo jar kligsiyaa kadibna halkan tag kadibna white iga dhig waa hagaag isla fartan ayaan koobiyeynayaa markaan koobiyeeyo waxaan leeyahay alt ii qabo halkan keen okay waxaan ku qorayaa markaan note ayaan qorayaa note markaan qoro waan soo qaadayaa halkan ayaan keenayaa dabcan farta markaan note qorto halkaan keensado dabcan waa fartan waa inaan isticmaalaa qaybtan mediumka waxaan ka dhigayaa bold ama black so marka bold iga dhig okay note inta kaliya ayaa weyn inta kalena waa yaryar tahay waa hagaag fartaas waa yara weyneynayaa marka okay centerkii keenan leeyahay okay waxyar waa ku darsan karaa weyneysan karaa tan lafirkeeda waxyar waan yara weyneyn karaa iyada lafirkeedna halkaas ii keen intaas markaa sameeyo halkan waxaan rabaa bisha koowaad ama 1 January inaan isticmaalo notekaan aan soo koobiyeysanaya waxaan leeyahay alt qabo halkan keen kadibna waxaan isticmaalayaa oo 2 jeer ayaan klik siinayaa 01 ayaan leeyahay kadib way yartahay weynee hagaag halkaas u weyneeyo centerii keen meelahan ii keen okay isla iyada soo koobiyey halkan keen waxaan qoraa January ayaan qorayaa si aan January u qoro January ayaan qoray kadibna intuu soo yar celi dabcan fartan isma lahan fartan nooceedu waa Arial so Arial ayaan ka dhiganayaa Arial ayaan isticmaalayaa Arial weeyaan fartan la isticmaalay waxa weeye Arial okay oo waxaan u maleynayaa inay tahay Arial oo black ah waayahay inta ii keen tan xataa waxaan u maleynayaa inay tahay isla Arial oo black ah Arial ka dhig halkaas ku qor Arial waxaan isticmaalaysaa black ah waayahay intaas markaan sameyno waxaa la iska rabaa in la qoro sorry notekii halkan iima yaalo notekaan aan iska soo koobiyeysanaya because haddii ay markaa koobiyeynayay waxaan sameeyey qalad yar ayaan sameeyey okay qoraalkan si aan u isticmaalo waxaan sameynayaa waxaan tegayaa text kadibna waxaan leeyahay farta iga dhig like buluugtan iga dhig farta waxaan isticmaalayaa midabkan buluugga ah kadibna halkan aan ku qorayaa midabkan buluugga isticmaal waxaan qorayaa Saturday intaas markaan qoro fartaan isticmaali doono waxay noqonaysaa logic ayaan isticmaalayaa oo waxaan ka isticmaalayaa medium ama waxaan isticmaalayaa bold logic bold ah fartiisa hadday weyn tahay yaree okay bartaa keen waxaa leedahay alt qabo saa u daragaree yani waa koobi moogtaa kadibna aan kugu celiyo mar kale alt qabaan ku yidhi saa u daragaree okay bartaasi ku joogta hadda okay sabti axad weeytan kadibna control d dheh isniin talaado arbaco khamiis jamco intooda waa wada haysataa hadda marka magacan u bedel Sunday dheh kan intaan markaa sameyno halkaa markaa
iyaga intaan dhan waxaan ka dhigaynaa midabkooda, intaas midabkooda waxaan ka dhigayaa white. Okay, white markaan ka dhiga kadib shape-kan ayaan soo qaadayaa, halkan ayaan shape kusoo abuuranaynaa, shape-kaas ayaan halkaas saari doonaa, annagoo midabkiisana ka dhigi doono shape-ka noocan ah. kadibna right click waa leenahay, arrange ayaa leedahay, markaa arrange dhahdid send to back waa leedahay, send to the back ayaa leenahay. Okay, intaa markaan sameyno shape-kan waa tutusinaynaa, kadibna hoos ka soo yar celi. Okay, soo yar dhaweey, waxaan sameynaynaa intooda saas hoos u yar celi. Okay, Friday oo kale waxyar halkaa usoo yar celi iyada, shape-ka laftirkiisa kor ka soo yar celi, halkaana u yara bixi. adiga iyo design-kaaga ayay ku xiran tahay qurxintaada. Friday isaga shape-kan uu soo koobiyey, kadibna saas geesaa ka soo dheh, soo yaray. Friday iyada laftirkeeda midabkeeda waa inaan caddaan ka dhignaa, kana soo qaad halkan keen, soo yaray, halkaa u daa. waxaan samayn doonaa markaa maalmaha bisha January waxay ka bilaabantay 1-da. soo marka 27-ka 28 29 30 31 waxay ahayd sanadkii hore ee 2025 ayaa maalmahaas uu ahaa, laakiin iyagaas active hadda lagama dhigayo because waa sanad lasoo dhaafay. That's why looga dhigay inactive oo opacity ayaa loo yareeyay. ama waxay ka bilaabantay sanadka cusub ee January 2026 bisha waxay ka bilaabantay maalin khamiis ah ayay active noqotay, oo bisha maalinta koowaad maalinkaas ay ahayd. So 31-da haddana isla bishan waxay ku dhamaatay maalin Saturday ah, Sabti ay ku dhamaatay. So Sunday iyadana waxay noqonaysaa wixii ka dambeeya yacni bishii kale ee February ayaa dhalanaysa. So waxaas ayagana kuwaas waxaa laga wada dhigayaa yacni maxaan ku yiraahdaa inactive ama opacity ayaa loo yareynayaa. tan xitaa in opacity loo yareeyo ayay ahayd, hadda waan u yareeyay. So marka waxaan leenahay kuwan unbaa iska soo qaadan doonaa. dabcan haddaan tusaale ku siiyo, tusaale ahaan hadda text ayaa tagaya, halkan maxaan ku qorayaa 1 oo kale iska dheh. 1gan markaas u qortid halkan aad keensanaysaa sooma, ama 27 oo bishii kale ah ayaan qortay. kadib waxaad samaynaysaa isla iyada ayaad koobiyanaysaa, halkan keen alta haysa sooma, taa kusoo beeg, kadibna control D dheh, control D control D control D control D. so marka hadda ku aadi tan jamcaha ku aadi, tan khamiista ku aadi, tan waxaa ku aadisaa arbacada, tan waxaa ku aadisaa talaadada, middan waxaa ku aadisaa isniinta, tan waxaa ku aadisaa axadda, waa ku aadisan tahayba, tanna sabtida kuga aadsanaato. so maalmaha markay saa ugu aadsan yihiin ayaga dhan wada dooro, kadib waxaad tirahdaa qaybtan imo oo properties-ka hoose ah, align vertical. okay, hadda waa isku wada beegan yihiin. iyaga markay saa ku yihiin marka ayagaas waxaad samaynaysaa altad qabanaysaa, hoos soo yar celi ayaad leedahay. okay, intee jiifa u baahana marka 1 2 3 4 5 6. okay, 1 2 waan haystaa, 3 sorry, waxaan leenahay marka kuwan ayaan hal mar adigoo alta haya ayaad hoos soo celinaysaa. marka meesha keentid intaas markaa keentid hadii waxaa leedahay 1 2 3 4 5 6 jiif aa loo baahan yahay. 1 2 waa haystaa, 3 4 5 6 jiif waa haystaa hadda. so marka labadan ilo garee control 2 dheh, shape-ka meesha ku dhex jiro control 2 dheh, qalaalka caddaanka ah control 2 dheh oo node-ka intaas hadda kaama dhaqaaqayaan. so marka iyaga saa wada dooro, waa inaan yareynaa, saa usoo yareynaysaa. weli yaree. so marka intaan dhan hadda waa iska tiraynaa marka maadaama aan yareynay.
middan inta ku aadi tan halka ku aadi so ayaga dhan hadda isla dooro mar labaad qaybtan imow oo align-ka ah isku beeg hadda marka alt qabo halka u soo yara celi 1 2 3 4 5 6 sida saxda waa sidan hadda marka adiga badbedelinaya waxaad samaynaysaa halka laata doosa maaha halka imow waxaa ka dhigaysaa double click waa leedahay 28 29 waxaan ka dhigaynaa horta midabka dhammaan saa ay ugu wada door kalarkooda waxaan ka dhigaynaa midabkan ayaan ka dhigaynaa buluuga kuwanna waxaan ka dhigaynaa midabkooda midabkan ayaan ka dhigaynaa midabkan ayaan u dooraynaa because jimcaha waa maalmaha fasaxa aanu ku jirno haddaanu nahay muslim laakiin dhaqamada kale iyo diimaha kale Saturday and Sunday ayaa iyaga fasax u ah so marka anaga maadaama jimcuhu fasax noo yahay midabkaas ayaanu u dooraynaa sidoo kale 1 2 3 4 5 ilaa 31 saa igu door midabkoodana waxaan ka dhigaynaa midabka cagaarka ayaan ka dhigaynaa midabkan cagaarka ayaan ka dhigaynaa midabkaas cagaarka ayaanu u dooraynaa okay sidaas oo kalena waxa waa opacity-ga ayaanu u yareynaynaa okay ilan maalmaha waa maalmihii bishii ama sanadkii hore aaway bishii 12aad ee December okay halkan idan waxa ku soo hartay sidaas oo kale maalmaha kale eeg ilaa iyo bisha 6aad 1 2 3 4 5 ilaa 7 ku keen intaas maalmahana waxa weeye iyagana waa bisha kale ee bilaaban doonta ee bisha 2aad ee sanadka iyagana opacity-ga ayaa loo yareynayaa okay opacity-ga ayaan yareynaynaa kuwan marka ayaga dhan waxaan ka dhigaynaa midabkooda cagaarka ayaanu ka dhigaynaa dhammaantoodba midabka cagaarka ah ayaanu siinaynaa kuwan oo dhan midabka cagaarka ah ayaanu siinaynaa gebigoodba so marka intaan marka opacity-ga ayaanu u yareynaynaa okay meesha marka waxaa ka dareemaysaa 1 laga soo bilaabo ilaa iyo 31 inay January tahay maalmahan gaduudkana ay yihiin maalmaha Friday-ga loo yaqaan jimcaha ee asbuuc dhamaadka ah ama asbuuca weekend-ga ama asbuuca fasaxiisa ay yihiin so halka marka waxaan soo dhiganaynaa logadan ayaan soo qaadayaa control C soo dheh soo koobiyanayaa kadibna halkan ayaan keensanayaa control V ayaan ku soo leeyahay logada halkaas soo dhiganaynaa waa Hodman Dental Care okay halkan 226 ayaan ku qoraynaa fartan isoo koobiyay okay fartan iska xiran tahay waxaan leeyahay right click unlock note ayaan soo furayaa soo koobiyan halkan keenayaa midabka waxaan ka dhigayaa midabkan kadibna waxaan leenahay 2026 weeyaan bartaan iska dhig isaga kadibna halkan waxaan ku qoranaysaa note-kii waa bartii aad note-ka ku qoran lahayd farta marka midabka style-ka waxaa ka dhigtaa black yar weynay sanadka 2026 weeyaan kadib waxaan tagaynaa line segment-gan ayaan soo dooranaynaa kadibna waxaan leenahay halkan ayaan kasoo bilaabayaa ilaa halkan shift adoo lahaya kadibna waxaad tagaysaa qaybtan stroke midabkan ayaan u dooraynaa halkaasna lambar 2 ka dhig okay isla isaga koobiyeynaysa waxaa leedahay alt qabo meelahaas keen kadibna control D okay halkaas ayuu inoogu dhan yahay dabcan calendarkeena waanu diyaarinay waxaana u diyaarinay Hodman Dental Care so marka mar haddaad bisha January aad diyaarsatid
it is easy for you haddii bisha labaad aragtid marka hore waxaa ka bilaabaysaa waxaa leedahay meeshan waxaa leedahay 02 waa bisha labaad magaceedana aad ku qoraysaa halkan yani February oo kale aad ku qoranaysaa marka u horeysa un baa laga rabaa in design-kaaga uu qurux badnaado oo design waqti kaa galay creativity leh oo aad u qurxoon uu noqdo soo mar haddii aad diyaarsatid kadib marka hadhowdii un waad bedbedelanaysaa 12 bil sidaas un ayaad ku soconaysaa oo waad ku bedbedelanaysaa marka insha Allah ardayhay casharkeennii aanu ku baranaynay how to make calendar design in Adobe Illustrator halkaas ayuu inoogu dhan yahay intaynu casharkiisa xiga dib ugu kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.